guddiga arrimaha dibadda ee golaha wakiilada Mareykanka waxa ay fuliyeen ballanqaad ay hore u qaadeen 20 sano ka hor oo ahayd in dib u eegis lagu sameeyo qaabaynta siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka waxaana loo codeeyay sharciga diiwaansaxinta siyaasadda arrimaha dibadda oo madax bannaan kaas oo meelaha taabanayo ay ka mid tahay qaabaysinka loo wajahayo siyaasadda Mareykanka ee Soomaaliya. madaxweyne Trump iyo aqalka cad xilligan waxay mudnaansiinta koobaad siinayaan mudanta danta Mareykanka taas oo ahayd wixii ololaha xooggan ee doorashada Trump ku soo galay 2024 kuna hantiyay codka dadweynaha Mareykanka. tani waxay ka dhignayd in jaangoynta danta Mareykanku ay mudanka koobaad leedahay waxaana sharciga cusub uu meesha ka saaraya masaalix guud oo la ilaalin jiray ayna qayb ka ahayd dhowridda madax bannaanida dalalka jilicsan taasoo sida Soomaaliya oo kale dhaawac weyn ku noqonaysa. in ka badan 20 sano ansixin noocan oo kale ah lagama samaynin sharci madax bannaan golahan gudihiisa balse inta badan waxaa kan lagu dareeyay siyaasadda guud ee Mareykanka oo waqti kasta la cusboonaysiinayay. sidaas oo kalena beegsiga danaha Mareykanka ayaa ahaa kuwa la mariyo aaga kooban oo la yaqaano ama aan firirsanayn. tabintan waxaynu ku eegaynaa muxuu uga dhigan yahay geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya oo la dhexgeliyay qadiyadda Somaliland sharcigan oo qodobo ka mid ah si toos ah u saameynayo. Wafi Square waa mashruucii ugu weynaa abid ee laga hirgeliyo xaafadda Parkland magaalada Nairobi. waxa isugu jira guryo deegaan ah, xarumo ganacsi iyo hoteelo five-star ah. waa xarunta cusub ee nolosha casriga ah iyo ganacsigu ay ku kulmaan isku marna aad ka heli karto. wixii faahfaahin ah lambarada shaashada ka muuqda. wakiilada Somaliland fikirkeeda xambaara oo guul ka gaaray qorshihii koobaad ee Kongareeska Mareykanka. imaanshihii xukunka ee Cabdiraxmaan Ciro iyo fikirka madaxweyne Trump ee la xiriira ganacsigu ay ku lamaan yihiin saaxiibadiisa jamhuuriga oo u janjeera dhinaca mudnaansiinta danaha Mareykanka iyo ganacsatinimada ayaa xoogga saaraya in la helo iskaashi gaar u dhexmara dhinacyada Hargeysa iyo Washington iyadoo laga eegayo danaha labada dhinac ay isku qaadan karaan. dowladda Soomaaliya inkastoo ay si xooggan uga dagaalantay Somaliland ay door ku yeelato siyaasadda aqalka cad haddana sharcigan cusub ee la soo saaray ayaa mudnaan gaara siinaya doodda Hargeysa. wuxuu abuurayaa in la sameeyo xiriir toos ah waxayna macno guud ahaan ka dhigan tahay in aagan Ciro iyo kooxdiisu ay mar kale guul kale ka joogaan. toddobaadyo ka hor madaxweyne Trump waxa uu si cad u sheegay inuu gacanta ku hayo arrinta Somaliland. senatarro iyo xubno Kongarees oo aad ugu dhow dhinaca Trumpna waxay olole u galeen qadiyadda Somaliland. taasi dowladda Soomaaliya waxay uga jawaabtay cambaarayn abaabulka shirkado dhaqaale lagu bixiyay iyo in la raadiyo wadiiqooyin kale oo bedel u noqon kara Mareykanka. calaamadaha soo muuqanayana waxa ay muujinayaan kala dhaqaaqa mar kale ee dhinacyada walow aragtida aqalka cad u muuqato mid saameynteeda gaarka wadata oo uu Trump yahay hogaamiye tixgelinaya meesha uu macdan iyo dan Mareykanka arkayo. haddana gobolka geeska Afrika ayay gufaacooyin badan ku leedahay. in sharcigan loo ansixiyaa si duuduuba iyadoo ay ku dhex jirto danta Mareykanka ee Somaliland ku wajahan waxay dhinaca Hargeysa u tahay ribax wanaagsan oo lagu khasbanyahay hadda la maalgashado waana dheefta ugu weyn ee loo dagaalamayay. sidoo kale in la kala qaado marka laga hadlayo xayiraadaha iyo digniinaha dhanka ammaanka Muqdisho iyo Hargeysa ma aha dhacdo sahlan oo si fudud ay dowladda Soomaaliya uga boodi karto. in Somaliland laga reebo meelaha ay ka jiri karaan halisaha amni marka laga hadlayo Soomaaliyada guud waxayna macno gaar u sameynaysaa Somaliland oo helaysa imaanshaha dadka Mareykanka oo lagu kabay maalgashiga oo sharcigan albaabada u furayo iyadoo ay shirkadaha ganacsi ay hormuud u yihiin kuwa baadi goobaya kheyraadka diin ay soo dhiiran karaan. in Mareykanku uu xafiis ka furto Hargeysa si uu ugu adeego danaha Mareykanka iyo Somaliland. tan waxay la macno tahay in la kala saarayo dhinacyada Muqdisho iyo Hargeysa oo hadda hal xafiis arrimahooda looga adeego. qodobka afraadna waa in la dhiirigeliyo maalgashi uu Mareykanku ku sameeyo Somaliland iyo in muwaadiniinta Mareykanka loo fududeeyo inay tegi karaan deegaanadaas. dhacdooyin aan la warin diblomaasiyaddu soo wadato. hal abuur International Academy waa fursad waxbarasho heer caalami ah lagana hirgeliyay magaalada Gaalkacyo. iskoolku waxa uu bixinayaa manhajka UK IGCSE laguna daray Quraanka Kariimka dhaqanka suuban iyo goobo ilmuhu ay ku nastaan. wixii faahfaahin kala xiriir lambarada shaashada ka muuqda. waxaa muuqata dhowr dhacdo oo dhammaan saameyn ku yeelan doona xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya xiriirka Mareykanka iyo danihiisa uu ku wajahayo xaalkan deganan ee geeska Afrika. in Kongareeska sharciga ay meel mariyaan la kala saaro Hargeysa iyo Muqdisho waxay ka dhigan tahay in Washington si rasmi u kala saaraysa siyaasaddiisa wareed. haddii xafiiska Mareykanka furo Hargeysa waa tallaabo bilow u ah una dhow aqoonsi
inkastoo aan si buuxda loogu dhawaaqin tani waxay Somaliland siinaysaa joogid diblomaasiyiin iyo sharaf caalami oo ay muddo dheer baadi goobaysay haddii digniinta guud ee Soomaaliya laga saaro Somaliland waxay ka dhigan tahay in muwaadiniinta Mareykanka shirkadaha iyo maalgashadayaasha loo arko inay si ammaan ah ugu safri karaan Hargeysa tani waxay kor u qaadi kartaa maalgashi toos ah ganacsi caalami iyo isku xirka bulshada Somaliland waxay heli kartaa maalgashi kaabayaal teknoolajiyad iyo taageero dhaqaale oo cusub dhalintana fursado shaqo abuur ayay helayaan tan oo shirkadaha Mareykanka looga ogoleen inay ka sameeyaan Soomaaliya isbeddelka miisaanka siyaasadda gudaha Somaliland waxay ku doodi kartaa in talaabadan ay muujinayso in goonisitaageedu uu yahay mid wax ku oolo oo guul laga gaaray waxay sidoo kale tan shidaal ku shubaysaa doodeeda la xiriirta in jidka loo marayo aqoonsiga caalamiga uu dhab yahay saamaynta Soomaaliya ka soo gaaraysa go'aanada Mareykanka diblomaasiyadda dhaawac weyn ayaa ku dhacaya Mareykanka haddii uu xafiis ka furto Hargeysa waxay si toos ah u weeqi doontaa dooda dowladda federaalka ee midnimada tani waxay u muuqan doontaa aqoonsi aan rasmi ahayn oo Somaliland la siiyay Soomaaliya waxay wajahaysaa dhibaato xoog leh oo in dowladaha kale ee reer galbeedkuna ay qaadaan tallaabo intaa la mid ah khatar burbur siyaasadeed iyo midnimo darro arrintan waxay kale oo sii fogeyn kartaa wada hadal kasta oo suuragal oo u dhaxeeya Muqdisho iyo Hargeysa dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaa ku adkaan doonta inay ku qanciso Somaliland inay ku soo noqoto wada hadal midnimo saameyn waxay ku yeelan kartaa maamulada kale Soomaaliya xilligan heshiis siyaasi ma jiro dastuurka ay dhinacyadu heshiiska ku ahayeen madaxweynaha ayaa bedelaad ku sameeyay iyadoo aan la isku raacsanayn Puntland Jubaland ama maamulada kale oo qaarkood ka shankisan awoodda fiila Soomaaliya ayaa arkaya in Somaliland ay ka faa'iideysato xiriir toos ah tani waxay dhalin kartaa doodo siyaasadeed iyo kala fogaansho dheeraad oo khatar gelin kara dhinacyada hadda ku midaysan nidaamka federaalka saamaynta juqraafiyadeed ee gobolka tartanka awoodaha shisheeye Mareykanka oo Somaliland xafiis ka furta waxay si toos ah u saameyn doontaa xiriirka Shiinaha iyo Ethiopia kuwaasoo dan weyn kula berbera iyo maranbiyoodka badda cas tani waxay Somaliland ka dhigi doontaa goob istiraatiiji ah oo dagaalka awoodaha waaweyn uu ku sii kulmo xilli Shiinuhu ay u arkaan Taiwan oo saldhigata Hargeysa halis mustaqbal oo jiritaankooda taabanaysa amniga badda cas iyo maranbiyoodka Baabil Mandab Washington waxay Somaliland iyo Puntland u aragtaa meel istiraatiiji oo ku taala badda cas iyagoo si gaar ah u daneynaya amniga xamuulka marinka mashquulka badan ee Baabil Mandab talaabadu waxay siin kartaa Mareykanka saameyn military iyo istiraatiiji oo dheeraad ah taasoo aan farxad gelinayn dhinaca dowladda federaalka ee Soomaaliya ku soo dhawow Daarul Asnaan Dental Clinic xarunta daryeelka ilkaha oo tayo sare leh war farxad leh adeegyada casriga oo ay ka mid tahay beerista ilkaha ayaa hadda diyaar ah Hindiya inaad aad uma baahnid Garowe iyo Boosaaso aad ka heli kartaa ilkaha maqan Daarul Asnaan Dental ayaa ku haya hal waar oo caafimaad leh